wasiirka marweyn iyo mudanayaal. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie mir heute bei der Feier der Unabhängigkeit Ihres Landes kurz Ihre Aufmerksamkeit schenken möchten. waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa inaad dabaaldegiinan aad u dabaaldegaysaan 18 May aad igu ansuuteen. Mein Name ist Matthias Siedek. Ich bin Chirurg und Lehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität der LMU hier in München. magacayga waxaa la yidhaahdaa Professor Matthias Siedek. waxaan ahay dhakhtar xagga qalliinka ah oo jooga ama ka shaqeeya jaamacaddan ku taala jaamacadda dhakhtarka jaamacadda ee magaalada München. Wir von der LMU haben vor 3 Jahren ein Center for International Health gegründet mit der Zielsetzung, die Ausbildung von Ärzten in den Ländern zu verbessern, in denen großer Mangel an Ärzten besteht. waxaan nahay urur caalami ah oo u hawlgalay in ay wax ka qabtaan tayeynta dhakhaatiirta khaasatan wadamada ay liidato tayada dhakhaatiirta. Vor einem Jahr war ich zu Besuch in Hargeisa. sanad hortii waxaan soo booqday magaalada Hargeysa. Ich war dort, um einen Kooperationsvertrag zu schließen zwischen der University of Hargeisa und meiner Universität der LMU. waxaan halkaa u tegay in aanu ahdi kala qoranno ahdigaasoo ah wada qabsi ama mataanaynta labada jaamacadood jaamacadda München iyo jaamacadda Hargeysa. Und bei dieser Gelegenheit habe ich auch die Bekanntschaft Ihres sehr verehrten Herrn Ministers gemacht. sidaa daraaddeed ayaan isku barannay wasiirka caafimaadka. Meine Einladung nach Somaliland, damals vor einem Jahr, verdanke ich 2 Personen. casuumaadii aan helay ee aan ku tegay socdaalka magaalada Hargeysa 2 qofood ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Das eine ist Herr Omar Jama Farah. Er ist Gründer der NGO Takulo Somaliland Community. waxa weeyaan Omar Jama Farah. Omar Jama Farah oo ah aasaha NGO Somaliland. Takulo Somaliland. Challenge waxaa la yidhaahdaa NGO-gaas Takulo Somaliland Community. Somaliland Community. Und die andere Person war Herr Markus Reichel, ein Student aus Wien, der eine Zeit lang in Somaliland für diesen NGO gearbeitet hat. qofka kale waxaa la yidhaahdaa magaciisa Dimamuba Markus Reichel. Marcos Reichelt oo is Student in Wien. arday ka dhigta jaamacadda magaalada Wien oo halkaas shaqo u joogay. Und er hat für den NGO von Omar gearbeitet. wuxuuna caawinayay NGO-ga uu leeyahay Master Omar. Nächstes Bild bitte. Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages war ein sehr feierliches Ereignis in der University of Hargeisa. ahdigii lagu kala saxeexday magaalada Hargeysa ee labada jaamacadood wuxuu u dhacay si ay ku jirto
farxad iyo damaashaad. Die beiden Minister für Erziehung und für Gesundheit der Regierung ihres Landes waren zugegen, sowie der Dekan der Universität, Herr Dr. Deria Erek Ismail. waxaa goobjoog ka ahaa munaasabadaas aad loo soo agaasiiyey labada wasiir uu mid yahay wasiirka caafimaadka oo halkan la jooga Dr. Hussein iyo wasiirka also die beiden Minister und der Dekan Dr. Deria Ismail. wasiirka ayaa jiray oo wasaaradda tacliinta iyo ninka maamula jaamacadda Hargeysa oo la yiraahdo Mr. Deria. Okay, Isabel, das nächste Jahr bitte. Gegenstand des Vertrages ist eine Zusammenarbeit in der medizinischen Lehre, die den Studenten und den Dozenten der beiden Universitäten zugutekommen soll. ahdigaas ama muwaafaqadaas isku waafaqay wada shaqayn inay dhex marto labada jaamacadood waxaa ka mid ahaa in ardayda labada jaamacadood iyo weliba macallimiinta labada jaamacadood ay aqoon isweydaars u dhex maro. Der Inhalt des Vertrages wurde anschließend über Radio und Fernsehen der Bevölkerung ihres Landes bekannt gegeben. ahdiga la kala saxeexday waxa ama afgaradkaas la kala saxeexday rasmiga ah waxaa laga sii daayey telefishinka waddanka iyo saxaafadaba. Danach habe ich das Krankenhaus und die Universität besucht. Hier kommen zwei Bilder. Zunächst die von Dr. Deria neu eingerichtete Bibliothek. markaa kadib waxaan booqday isbitaalka halkana waxaad ku arkaa sawir librariga oo halkan inooga muuqda. Und hier auf dem anderen Bild wunderschöner Baum auf dem Krankenhausgelände, in dessen Schatten die Studenten miteinander lernen können. waxaad kaloo halkan ku aragtaan geedka quraca la yidhaahdo oo aada u qurux badan oo harkiisa ay ardaydu ka sheekaysanayaan casharkii ay qaateen. Unser Center for International Health verbindet viele Länder des Südens miteinander. wada shaqayntaas waxay samaynaysaa macno badan waxay u samaynaysaa xiriir fara badan oo ah annaga danaayar galbeedka iyo gobolada koonfurta wadamada soo korayaan. Zu unserem Netzwerk das nächste Bild bitte, zu unserem Netzwerk in Ostafrika gehören außer der Universität von Hargeisa noch die Jimma University in Äthiopien. waxaa kaloo adana ku aragtaa sawirkan wada shaqaynta naga dhaxaysa jaamacadda Hargeysa waxaa kaloo jirta wada shaqayn aan loo leenahay jaamacad iyadana ku taala waddanka Ethiopia oo la yiraahdo Jimma University. Die Catholic University of Mozambique in Beira, Mosambik. iyo jaamacad ku taala waddanka Mozambique. Ein Forschungskrankenhaus in Mbeya, Tansania. hospital cilmi baarisa oo ku yaala Tansania. Sowie hoffentlich bald auch die Universität von Juba in South Sudan. iyo weliba jaamacad ku taala waddanka koonfurta Sudan. Und darüber hinaus besitzen wir Netzwerke in Südostasien und in Lateinamerika. xiriirka caalamiga waxaan loo leenahay wadamada Asia iyo Latin America. Nun, Sie werden sich jetzt als nächstes fragen, was haben diese Ärzte so geschafft in diesem einen Jahr? kolley waxaa isweydiin doontaan bal sanadkaa maxay dhakhaatiirtaasi waa dhakhtarkani
iyo kooxdiisu ay halkan ka qabteen. Nächste bitte. Hier sehen Sie ein Bild von einem Training in Äthiopien. halkan waxaa ku aragtaan waddanka Ethiopia jaamacadeeda. Das ist in Jimma, Äthiopien, und ich habe gleich dorthin 2 Teilnehmer aus Somaliland mitgenommen. ardaydaas wax ka dhigata jaamacadda Ethiopia waxaanu iyagana fursad ka siinay 2 arday jaamacadeed oo reer Somaliland. Das ist ein anderes Training in einer anderen Stadt in Äthiopien, und auch dort habe ich 2 Teilnehmer aus Somaliland mitgenommen. halkan laftigeedu waa goob tababar lagu siinayo ardaydu. halkan laftigeeda waxaa ku aragtaan arday kale oo reer Somaliland. Das ist eine junge Ärztin, die ihren Abschluss in Hargeisa University gemacht hat. halkan waxaa ku aragtaan dhakhtarad dhalinyar oo jaamacadda Hargeysa ka soo baxday. Und das Center for International Health konnte es ihr ermöglichen, dass sie 2 Monate lang Chirurgie in Jimma studiert. sidaa daraaddeed ururkeenna caalamiga ah wuxuu u suura geliyey in ay semesterada qaar ay ku dhammaystirato ama ku dhigato jaamacadda Jimma University ee waddanka Ethiopia. Wir haben organisiert, dass in Hargeisa ein Workshop stattfindet für Mental Health. waxaa kaloo aan abaabulnay in uu Hargeysa ka dhaco seminar cilmiyeed caafimaadka gaar ahaan xagga maskaxda ah. Und die Jimma University hat für 2 Ärzte aus Somaliland ein Stipendium bereitgestellt, dass die 2 Jahre lang eine Ausbildung zum Mental Health Experten machen können. jaamacadda Jimma University waddanka Ethiopia waxay 2 arday jaamacadeed ku deeqday deeq waxbarasho oo ay ku noqonayaan khubaro xagga caafimaadka maskaxda ah. Seit der Unterzeichnung des Vertrags ilaa intii uu dhacay heshiiska la dhex maray jaamacadda iyo 2 jaamacad dhex maray la saxeexay, haben wir gemeinsam mit unseren Partnern in Somaliland, Herrn Dr. Deria Ismail Erek von der Universität und dem NGO Herrn Omer, Folgendes erreicht. waxaanu wada shaqayn horumareed la gaadhnay madaxa jaamacadda Master Deria iyo ninka kale ee NGO isaguna le markii hore magaciisa u sheegnay. Wir haben insgesamt 5 Personen ein Training in Äthiopien ermöglicht. waddanka Ethiopia ayaanu 5 qof tababar uga suura gelinay. Wir haben in Hargeisa einen Workshop abgehalten. waxaan magaalada Hargeysa ka samaynay seminar cilmiyeed oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Und wir haben insgesamt 5 Personen nach Hargeisa geschickt, davon 2 Studenten. 5 qof ayaan u diray magaalada Hargeysa oo ay 2 ka mid yihiin arday jaamacadeed. bal waxaad samaysaan xoogaa maqalkii baad moodaa inuu khaldamay, ismaqalkii baad moodaa inay dhibaata ka taagan tahay. alla is dhegaysto fadlan, martidana aynu tixgelino. Also, aus dieser Liste können Sie auch ersehen, welche Ziele und Strategien wir bei unserer Zusammenarbeit verfolgen.
marka halka waxaa ka akhrisan kartaa qaab dhismeedka aanu shaqadayada doonayno mustaqbalka inaan u fulino. Bei uns geht es in erster Linie um Capacity Building. Wir fördern Personen oder Gruppen. Annaga muhiimadeedu waxa weeyaan in aan kordhino tirada khubaraada oo gaar ahaan iyagoo si guruub ah oo koox ah iyo haddii ay noqoto shati und wir verknüpfen Universitäten miteinander. waxaan kaloo samaynaynaa isku xidh labada jaamacadooda. Wir haben seit 10 Jahren mit der Jimmer University zusammengearbeitet. waxaanu 10 sannadood wada shaqeyn naga dhexaysay jaamacaddaas Jimmer University. Und diese Universität ist inzwischen so stark geworden, dass sie eine Führungsposition in Ostafrika übernehmen kann. wada shaqeynta aan la yeelanay waxay suuragal ka dhigtay in jaamacaddaasi ay awood fara badan oo yeelato oo ay noqotoba kuwa ugu horeeya bariga Afrika. Und nun verknüpfen wir die Universitäten von Jimmer und von Hargeisa miteinander. marka imika waxaan wadnaa bal inaan xiriirka noocaas oo kale aanu gaadhsiino jaamacadda Hargeysa. Und nun werden Sie sich fragen, was haben diese Ärzte in der Zukunft vor? marka bal su'aasha hadda waxay imika noqonaysaa bal dhakhaatiirtan mustaqbalka maxay qaban karaan. Also wir möchten mehr Ärzte für kurze Aufenthalte nach Jimmer schicken. waxaan doonaynaa ku tala jirnaa inaan dhakhaatiir fara badan u dirno magaalada waddanka Itoobiya jaamacadda Jimmer University oo ay tababar halkaa ku qaataan. Wir wollen mehr Teilnehmer von Somaliland zu einem Teacher Training nach Äthiopien schicken. waxaanu arday badan u suuro gelin doonaa inay aqoon kororsi ka helaan jaamacadda Hargeysa ee jaamacadaha kale. Wir werden wiederholen Mental Health Training. Wir werden das entweder in Somaliland machen oder in Harar. waxaanu ku celcelin doonaa tayeynta caafimaadka maskaxeed oo aan ama Somaliland ku samayn doono ama magaalada Harar waddanka Itoobiya. Und die Jimmer University wird ein weiteres Sponsorship für eine Teilnahme an einem Residency-Programm machen. waxay diyaar u tahay jaamacadda Jimmer University inay bixiso taageero loo fidiyo arday kale oo halkan ku barata. Der Dekan der Jimmer University, Herr Professor Abraham,